xildhibaanada agaasimayaasha guud iyo dhammaan martisharafta munaasabada ka soo qayb gashay waa salaamaya. Waxaan hambaliyaynayaa dhalinyarada ubaxa ah ee hortayda fadhida ee qiimaha badan oo runtii maanta ah wax lagu hirto oo runtii maanta ah mustaqbal ummadeed oo soo kordhay. abwaabkii weynaa ee maxamed maxamuud yaasiin oo dheeg ku magac dheer ayaa mar uu ka yaabay sidii dhalinyaradii abwaanada ahaa ee halgankii ummadda Somaliland ee sanam siday ugu kaceen ayaa tubuc ka mid ahaa gabayadiisii waxaa ku jiray dadka waan ka quustee dunida show rag baa nool maxaa diricee soo kacay ku darsamay kuwii hore. maanta waxaan leeyahay maxaa diricee soo kacay ku darsamay kuwii hore. aniga iyo mas-uuliyiin badan oo halkan maanta fadhida waxaan ka nimi Hargeysa waxaan u nimi inaanu farxadda idinla wadaagno oo idinkala qayb galno. Burco oo magaalada maanta aanu joognahay waa magaaladii Somaliland lagu aasaasay, waa magaaladii calanka quruxda badan iyo haybadda qarannimo aynu ku dhidibnay, waa magaaladii halgankii sanam ugu horreynba lagu xoreeyey, waa magaaladii ay ka dhasheen 3 madaxweyne oo Somaliland soo hogaamiyey oo uu ugu horreeyey Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur, Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo Axmed Maxamed Maxamuud Siilaani. magaalada qiimaha badan ayaanu maanta idinku nimi. waxaa maanta qaayaheeda leh ubaxa iyo aqoon-yahanka soo baxay ee reer Burco ee maanta ka qalin jebinaya jaamacadda Alfa ee tiradoodu dhan tahay 350 arday. Burco waxay ahayd magaalo laba astaamood aad ugu caan ah geyiga Soomaalidu degto oo dhan. waxay caan ku ahayd aqoonta, waxay caan ku ahayd ciyaaraha. aqoonta markaan soo qaato maanta badan aqoonada aynu joogno Burco waxaa ka dhashay oo ka soo jeeday aabihii aqoonta Soomaaliyeed Maxamuud Axmed Cali. waxaa kaloo ka soo jeeday oo u dhashay abwaankii weynaa filosofarkii cuslaa ee geyiga Soomaalida oo dhan caanka ka ahaa Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi. astaamahaasi waxa ay ka dhigayaan Burco in ay magaalooyinka kale ee Somaliland oo dhan kaga duwan tahay xagga aqoonta oo ay haysato ama ku abtirsadaan aqoon-yahan iyo dad maskaxdooda aqoonta iyo xeeldheerida ku jirtay geyiga Soomaalida oo dhan laga tirsan yahay. aqoontu marka la barto waa inay abuurtaa haweyni, waa inay abuurtaa mas-uuliyad, waa inay abuurtaa qofku inuu xil ka noqdo. hanku isagaa kala sarreeya sida jarajarooyinka aadamuhu koro oo dhan u kala sarreeya ayuu hanku u kala sarreeya. aqoontu ma aha in qofku ku shaqo tago, aqoontu ma aha inaad maalintii ku xoogsato, aqoontu ma aha inaad qoyskaaga ku anfacdo, aqoontu ma aha inaad guryo iyo daaro waaweyn dhisato iyo baabuur. aqoontu waxa weeye inaad ku anfacdo ummad dhan oo Somaliland la yidhaahdo. aqoontu waxa weeye inaad ku beddesho mustaqbalka ummaddaada oo isku duuban. aqoontu waa inaad qaran jiilalka adiga kaa dambeeya ay manaafacaadsanaan aad ku dhisto. jiilalkii Somaliland ee kala dambeeyey ee kumanaanka sano iyo boqolaalka sano soo halgamayay ee gumaystihii laga soo bilaabo ee asal u dambeysay halgankoodii iyo tacabkoodii waxa ay ku bixiyeen in ay abuuraan mustaqbalka maanta ay goobjooga ka nahay ee qalinjabinta leh ee goolka quruxda badan ee xidhantihiin leh ee nabadda leh ee dowladnimada leh ee kala dambaynta leh. tacabyada la isu geeyey waxa ay abuureen nolosha maanta aynu ku noolahay ee quruxda badan. mustaqbalka soo socda haddii innaga maanta intiina qalin jabisay iyo inteena noole aynaan dadaalin oo aynaan jiilasha inaga dambeeyo mustaqbal u binaynin ku soo beegmi maayaan mustaqbal qurux badan. waxaa markaa inala gudboon in aynu mustaqbalka ubadkeena iyo jiilalka soo socda maanta dadaal u gallo sidii aynu horumar iyo dhigaal ugu sii dhigi lahayn. waxaan kaga tegayaa maadaama oo dad badan oo mas-uuliyiin iga dambeeyaan eray ku jiray heesaha
qarniyada dambe la sameeyey baa wuxuu ahaa ninkii isdhigtay dhashiisu qadaa waa ereyga aan rabo inaan sifeeyo ee jiilalka inaga dambeeya kuwa dhabarradeenna ku jira iyo kuwa dhashay guryaha inoo jooga iyo kuwa ka sii dambeeya inay manaafacaadsanayaan dadaalkeenna maanta aynu bixinno iyo mustaqbalka aynu maanta usii dhintayno kuwii inaga horreeyey mustaqbalkan maanta inoo dhintayena intooda dhimatayna allaha u naxariisto intooda noolna allaha sharfo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum